Digaagada madow ee Indoneesiyaanka ah waa mid ka mid ah digaagadaha ugu yaabka badan uguna sicirka badan adduunkan aynu ku dul noolnahay. Waxaa lagu qiyaasaa qiimaha halkii digaag lacag dhan $2,500 oo dollarka Mareykanka ah. Waxaana loo yaqaanaa magacyo badan oo ay ka mid yihiin ayam simani, lamborghini iyo magacyo kale oo badan. Digaagadan asalkeedu markii ugu horeysay waxaa dhaqan jiray dadka Indoneesiyaanka ah oo ayaga loogu magac daray. Digaagadan waxa ay caanka ku tahay dhadhan aad u macaan badan, balse qiimaheeda ayaa aad qaali u ah oo cid kasta iskama iibsan karto. Gudaha Mareykanka, halkii digaagad oo digaagadan ah waxaa lagu iibiyaa qiimo lacageed dhan $2,500 oo dollar, oo waxa ay ka qaalisan tahay neefka lo'da ah suuqyada Mareykanka. Sidaas awgeed ayaa loogu magac daray Lamborghini, qiimaheeda oo aad u sareeya iyo muuqaalkeeda soo jiidashada leh awgeed. Waxaa la sheegaa in dadkii hore ee Shiinaha ahaa in ay u isticmaali jireen dawo ahaan oo ay ku daweyn jireen cudurrada qaarkood. Digaagadan madow ee Indoneesiyaanka ah waxa ay kaga soocan tahay digaagadaha kale midab madow oo gudaha iyo dibadda jirkeeda oo dhan ah: maqaarka, afka, carabka, cidiyaha, hilibka, xitaa lafaheedu waa madow. Kaliya dhiiggeeda ayaa gaduudan, isaguna waxa uu u eg yahay madow xigeen. Markii ugu horeysay ee qaaradda Yurub lagu arko digaagadan madow waxa ay ahayd sanadkii 1998, waxaana dhaqan jiray nin Hollandees ah kaas oo u arkay in ay muhiim tahay dhaqashadeedu muuqaalkeeda cajaa'ibta badan awgeed. Gudaha Indonesia waxaa si gaar ah digaagadan aadka u isticmaala haweenka uurka leh. Waxaa la sheegaa in ay ku jirto xaddi badan oo maadada ironta ah, taas oo ka hortagta dhiig yarida. Dadka Indoneesiyaanka ah, digaagadan waxa ay aaminsan yihiin in ay calaamad u tahay awoodda iyo deeqsinimada. Waxa ayna inta badan gowracaan digaagadan xafladaha dhalashooyinka si uu u noqdo ubadka dhashay mid awood badan oo hanti leh sida ay aaminsan yihiin. Daawada, haddii aad ka heshay warbixintan, ha ilaabin in aad like saarto, sidoo kalena aad subscribe gareyso kanalka si aad u hesho warbixinadeena. Mahadsanid.